isagoo ka jawaabaya fariintii madaxweynaha iyo siyaasaddiisii iyo policy-ga ku saabsanay safaaradaha waxa yara loo dhiibay inuu ka gooyo oo ka tashiilo wax safaaradahana lagu iibiyo marka waxaan muxuu ahaa hadda mikrofoonkan ku soo dhaweynayaa ambassador cali shariif aad u mahadsan yahay waxaana rabaa markan inaan siiyo runtii safaaraddan dhaqaalaha lagu iibiyey waa dhaqaalo dadka canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed laga aruuriyey taana waxay ku timid in dakhliga la kordhiyey in lacagihii faraha badnaa ee meelaha ka bixi jiray la kontaroolay in musuqmaasuqii lala dagaalamay waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa muddo badanna aad kala socoteen warbaahinta haddii aysan ahayn dadaalka uu u galay wasiirkeena maaliyadda maanta maana helnay dhaqaale aan ku iibsana safaarad waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirkeena maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele. بسم الله الرحمن الرحيم مدير مدحويني مدحوينها يوزيك لما جبته عود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. خبر بدي أنا حتى صحافة مديرية. شرف ويبين فرحان ويبين هاي. نقول على هاي ما أنت هالكن لقيه. أدبان وفرح سنة روتي وكنسيب كنسار ويا على في كولومبيا اللي قد يجي كينينا لصاري وفرحان مدير مدحويني أنا وكهرا عينا باقي أها إن هانتيدا قرنكا وحي دوين الهجاجيو. وحكرنا عن كدرنا. meelaha muhiimadu saaranta adduunkana safarada ka sameysano anagoo ka burjireyna baaqaagii clearka ahaa ee qasiisay ayaa tani kow ka tahay waxyaalaha aad tiri qabta maanta waxaan ku faraxsanahay sida daraadeed iyadoo maanta suura ka sheegay kala furo waxaan noogu xigi doonaa sida amarka aad ku bixisay inaan ka sameysano magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa iyadana ku tira jira meelo kale oo badan baan doonaynaa safarada in la sameeyo dakhligeedu waa yar yahay laakiin waxa ku suurgelaysaa waxa weeyaan iyadoo oo wixii dalkaas soo galay la isku ogaado meesha marayo oo iyadoo amarka dawladda lagu socday amarka madaxweynaha wax waliba halkay marayaan la ogaado dad iyo Soomaaliyeed baa ogaanaysan ayaa tani ku suura gashay in la sameeyo waxa kale oo ajendaha noogu jira ama qoondaha noogu jira in Pretoria mid laga iibiyo in meesha ku leenahay muxuu ahaa la yiraahdo Nairobi ayadana dib loo dhiso waxyaalahaas baa ku jira madaxweyne amarkii aad siisay baana lagu socdaa waxa kale oo ku jira in kuwa kale ee proposal la dayac karo ayaa iyagana meesha ku jira waxa ku jira oo kale wixii hanti aan leenahay dalka gudihiisa in iyagana la soo tirakoobkaas oo madaxweyne dhammaad ku jira oo hadhowaan ku keeni doono ciddii ku jirtana laga saaro dalka Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo aad iyo waxaan doonayaa halkan madaxweyne dhowr jeer baan anoo halkan imid waan aqalkan iyo aqalla kale isku soo aragnay kana lagu conclusion noqday safiirka cali shariif ayaan aad ugu mahadcelinaya iyo wasiirka oo iyaguna tamarta ay lahaayeen duldhigay ayaa runtii aan u mahadcelinaya dhalinyarada ka soo shaqaysay Soomaaliyeed halkan ka shaqaysay wada volunteerka ku shaqeeya runtii volunteerka ku shaqeeya madaxweyne ayaan mahadcelinaya magaalayaasha ayagoo la aqaaday in haddana halkaa yimaado madaxweyne ku shaqeeya dalkan ayaan mahadcelinaya finally waxaan mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha oo markuu ogaaday inaad halkan imanaysa madaxweyne this time 2 week ka shaqeynaya in lacagta suura gashay la soo diro oo amar bixiyay runtii in lacagta suura gashay in la soo diro oo maanta aynu halkan lacagtii aan tirino aqalkan nagu soo wareeyo saa daraadeed waan ku faraxsanahay anigu ruuxani waxaan iska ilaalinayaa emotional garo meesha aan xiribaan iska ilaalinaya marka aad baan mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wasiirka aad u mahadsan yahay maanta waxaan furayno waa dhisme safaaradeed oo ay safaaraddeenu ku shaqayn doonto oo ay kirada uga bixi doonto oo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed insha Allah ay ku shaqayn doonaan laakiin safaaradda hore u furnay waxaana safiiradii soo shaqeeyay ka mid ahaa wasiirkeena arrimaha dibadda Danjir Axmed Ciise Cawad oo muddo halkan safiirka ahaa waxyaabaha wasiirku noo sheegay waxaa ka mid ah inay jireen dad Soomaaliyeed oo reer Mareykan oo is-abaabulay oo rabay inay safaarad dhisaan qarashkooda ku dhisaan marka waxaan rabnaa asagoo ku hadlaaya magacii wasaaradda arrimaha dibadda iyo inuu yahay nin idinku dhow qulubtiinu ku dhow inaan halkan ku soo dhaweyno wasiirkaana madaxweynaha ku soo dhaweyn doona waad mahadsantihiin mahadsantahay cabdinuur madaxweyne madaxweynaha saaxiibkay wasiirka maaliyadda
safiirka iyo howlwadeennada safaaradda volunteerska iyo dadweynaha Soomaaliyeed. We're also, I'm told that also a representative from the State Department is here. They have been always supporting us, so they are also welcome to this important occasion. Marka intaana madaxweynaha soo dhaweyn waxaan rabaa inaan laba kalmadood sheego. Kelmad waxa waaye mahadnaq. Kelmadna waxa waaye isxusuusin jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka joogta oo safaaradda aad u garab istaagay oo iyagu marka hore ballan qaaday inay safaarad kiibiyaan inaan u sheego in aan kelmadaan iyagu u sheegin. Kelmaddu waxay tahay gadaal baan sheegi doonaa. Madaxweyne waxaan u mahadnaqayaa hortaada adigana jeclaan lahaa inaa ogaatay muddo badan la sheegay dad Soomaaliyeed oo gabdho u badan oo volunteers ah oo tan iyo 2015 markii safaaraddii Soomaaliyeed dib loo furay 24 sano ka bacdi markay xirray dad Soomaaliyeed gabdho yar oo Mareykan ku koray iyo gabdho kale oo la korsanayay wasaare abraar ugu horeyso inay volunteer ku shaqeynayeen from day one. waxaa ka mid ah gabadh la yidhaahdo Casar Sumaya mar loogu yeero oo qoftii ugu horeysa halkaa ka volunteer galaysanahay inaa cabdiilaah maalig. waxaa kaloo jirta gabadh la yidhaahdo Khadra oo iyaduna volunteerska gadaal kusoo biira ah. waxaa jirta gabdhihii tagay Ayaan iyo Leyla iyo oo iyaguna shaqooyin kale helay laakiin safaaradda volunteer joogta ah. waxaa ka mid ah gabadh Xaali la yidhaahdo oo konferensyada ugu waaweyn waddanka keligeed samaysay sidaan. madaxweyne dadkaas iyagoo volunteers ah subaxdii 7 waa soo galaan habeenkiina waxay shaqeeyaan haddii loo baahdo ilaa iyo midnight. ma aha ka badbadin waa hadal ما شاء الله waxaa Ali Daashi وإن كستو سو شغالة سفارة هاي وياهي دراول لكن دراول كنا كلمة غير الله ما يسوى واحد دراول هي واحد ضمن في هاي إلا هي معناتي سفارة أنت غفرين حتى شقيري مركز داركود مدحوينه إسقى وحصول كذا مركب مرتبات مع شباب حصول كذا سوى ذكر بقية حساب وقبل سفارة هاي شخص ما شاء الله وحا يقولنا مدحوينه محل شيء مدن تلمعبد مدن ضد كسوماليين أمريكا from California to Maine هي أنت أول حيث ويجوه الريان ضد كرير مينيسوتا يضد كرير أوهايو Tennessee is here too. waan sheegay madaxweyne Soomaalida Mareykanka joogto uma kala harin way kala dadaal badnaayeen waa loo kala dhawaayay kulligood waxay garab istaageen safaaradda la'aantood safaaradda Soomaaliyeed meeshay gaartay ma gaarteen taas marka waa mahadnaqi طبعا madaxweyne waxaa kula taagan Shariifka Maxamed oo isaguna ahaa entertainmentka safaaradda madaxweyne waxaa halkan jooga oo ammaan mudan amaanta ugu badan beer habis mudan in Soomaaliya oo injineer ah oo $30,000 geliyay safaaradda markii ugu horeysay sidii uu ما شاء الله ما شاء الله Abdullahi Barrow Abdullahi Barrow madaxweyne waxaa kaloo jira uga jeedo maanta isha ma aqaano nin la yidhaahdo Nuur oo isaguna nuurkaana waa nuurkii oo shiikii halkan ku dhiman jiray oo Central Bank Nuur Sheekh Cali Nuur Sheekh Cabdi oo ahaa safaaradda ninka u sameeyey internet systemka lacag la'aana ugu shaqeeyay madaxweyne intaasi waa maantii dadka badan amaanta mudan waa badan yihiin laakiin waqtiga xiriiriya daraadeed madaxweyne waxaan kusoo gabagabaynayaa kelmadaan u jeedinayo hortaada
ummadda Soomaaliyeed haddaan tilmaamay Mareykanka joogta dadka Soomaaliyeed oo Mareykanka jooga waxay ballan qaadeen inay safaarad iyagu dhisaan oo gadaan safaaradda adeegyo badan bay u sameysay ummadda Soomaaliyeed oo makaanti ka yihiin marka hadda madaxweyne adiga ayaa ka soo hormaray dowladda safaaradda xafiiskeedii chancellery ayaa la iibiyay dowladda Soomaaliyeed waxaan ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha hortiisa ka codsanayaa in ay waxaan xusuusinayaa ballanqaadkoodii oo culimadu ugu horeysay oo gabdhuhu ugu horeeyeen oo dhalinyaradu ugu horeysay oo gacmihiisa ugu horeeyeen ahaa inay safaarad gadaan sidaa daraaddeed waxaa dhiman safaaraddu waxay leeyihiin hal dhisma ka badan waxay leeyihiin dhismaha safaaradda ku shaqayso chancellor kaloo kale waxay leeyihiin guri safiirka waxay leeyihiin guri hawlwadeenada waxay leeyihiin guri martiyeed marka waxaan rajaynaynaa in aydaan u qaadan in mas-uuliyadda idinka dhacday sidaa daraaddeed waxaa laydinka rabaa inaad gadaan guryaha dhiman waa mahadsantiin mar kale haddana waxaan mikrofonka kusoo dhaweynayaa madaxweynaha بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada oo la socda safiirka Ali Shariif iyo safiirada kale oo la socda howlwadeennada safaaradda marti sharafta kale oo aan qaarkood arko meelo fufo ka yimaada looga yimid marmada koowaad kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum horta allah mahad iska leh ilaahay inaan mahadcelino mar walba waa nagu waajib oo markay ugu sahlan tahay annaga hawshii aan u nimid inoo fududeeyey in dalkan ka lahayn UN-ka iyo halkan inaan imaano idinkana ilaahay idin fududeeyey inaad halkan timaadaan oo qaarkiina meelo furfur aad ka timaadaan waxaan rajeynaa insha allah si nabada qof walba inuu ugu noqdo hooygiisa iyo gurigiisa waxaan u mahadcelinayaa safiirka iyo howlwadeennada safaaradda oo sida la sheegay runtii shaqo aad iyo aad u ballaaran qabtay oo suurtageliyey runtii inay waqti badan juhdi badan geliyaan sidii loo heli lahaa locationkan oo anigu waa kala qaana magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarado badan ay ku yaalaan waxaa la filaaya waqtidan oo kale in aan haddaan nahay Soomaaliya iyo xaaladdan ku jirno meelo fogfog oo luqluuq ah inaan ku dhumanno laakiin alxamdulilah ilaahay waa mahad iska leh in dadkii wax loo raadiyey iyo tabarteena aan isu geynay inoo suurta gashay inaan maanta meeshaan isugu imaano oo aan safaaraddan aan ka furno waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee meelo kala fog ka yimid iyo kuwa DC iyo Virginia maxaa nooga yimid oo ka soo qayb galay xafladdan waan jeclaan lahaa sidii la ii doortay hadda ugu horeysa inaan Mareykanka kusoo noqdo oo qorshahaygu uu ahaa inaan tago Minnesota iyo Ohio iyo Boston iyo Texas iyo Toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyeen waxa way sidii noo taageereen waagii qaran aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa taageerada mar walba ay u hayaan dowladda iyo wadaniyadooda ay mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dowladooda insha allah waa idiin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaasaan sheegana waa booqanaya hadduu ay biiraahay sugeynaa reer Minnesota ما شاء الله waxaan u mahadcelinayaa golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyey oo suurtageliyey sida wasiirku uu sheegay inaan hantidan oo dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhaxaysa in wax loo beeqaamiyey wax loo meel dhigay si ay u soo toodo safaaraddan oo ay ku taalo Washington oo ah dowladda Mareykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic ally aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ما شاء الله wasaaraha iyo golaha wasiirada runtii uga mahadcelinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd
in Soomaaliya qabkeedii aan soo celino waana ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxay banaane maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxay banaane maanta runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladan aad iyo aad loo soo qaban qaabiyey quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ay ku shaqeynayso xafiisyada u noqon doona aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay aniga haddee meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykanka markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha la soo maray marxaladaha la soo maray waa aqaanaa markaan taariikhiyan kaga taabto runtii safiir walba soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dowladda Soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurta ah oo safaaradda ku shaqeyso waa lagu guuleystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo marka weli ma leedahay meesha oo ay deganaayeen dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas laftigeena madaxeena waa taagnaa waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada laftigeeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taala aniga waxaan ku soo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo magaalada la degan oo habeen iyo maalin ku soo kaca in la helo xafiis ay dowladda Soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyey oo horey u joogi jiray Abdullaahi Axmed Cadow oo isagana bacdama uu gurigii isagu hore u gaday raba inuu dhamaystiro intii Ilaahay ku soo celiyey isaga naftigiisana runtii dadaal badan u geliyey ilaa haddee markii ugu dambeysay xaalad iska halaawday haddee safaaraddii o dhan baan ku weynay marka iyo magaceennayba 1991 ka dambeeyey alxamdulilah hadda ilaahay annaganu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo maasha Allah Soomaaliya ana walaato si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii hay israacda kala maqan waana intii aad ugu taageeraysay maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow inuu rabo la soo celiyo sharafka Soomaaliya sharafkeena la soo celiyo maasha Allah Toso iskutisalaye hadbakini tagdarane taageer waliine hay israacdo nolosha waan aan cunto leesa u cuneyna waa daal hay israacdo marka annaga ajendayaasheena ugu horreeyay waxay ahayd inaan qabkii Soomaaliya soo celino oo aan annagu soo aqoonsan inaan nahay dadka adduunka ugu fiican oo maxaa ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay maasha Allah marka Ilaahay waana doorto alxamdulillah intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto hadda waxa weeye waxa moogtahay waa wax dheeraad ah marka intaas inaan ku xamdi noqono waa ilowni alxamdulillah intaas oo wanaag Ilaahayna siiyay marka qabkeena inaan soo celino sharafkeena soo celino karaamadena soo celino laba waxa noo ahaa inaan helno maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay meesha aan taagannahay oo foosha xun inaan joogno maxaa yeelay 20 sano ugu dambeeyey intii ka horreysaba dee xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dowladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaasaa waxaa la gaaraa wixii la qorsheeyey in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka siduu ahaan jiray waxay ahayd sanad walbaba dad cusub inay yimaadaan hadda fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa idiin sheegayaa oo sida waxyaabihii isku rigi jiray yaan meel dhignay Moosho waan ka reesanay maasha Allah
بداية وخرج كرين جري بلانتا سوا اوفيسي بلانتا سوا اوفيسي حسيلوني وماشي وماشي تمام ده هدوس حسيلوننا عيد آمنة سمرة عيد كلام عامل سمرة حتى ضدك هذه وزيران ما آمنة إن يصير شقين كرام باش عارف كان كلام شقين كرتو لابو زول وناك ورنتي واحنا لما غنى أهم مدير ويوه الرئيس الموسوماس فربضن فربضن waxa iyada lafteedu qayb ka ah xasuulin la'aan maxay inay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada lafteeda dee waxa kaliya ee dowladda ku shaqeyso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonida shacabka ka haysata wixii lagu aaminana sidii ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhaxayso taasaa marka waxay keentay inaan bilaawno maxaan ka bilawnaa dhismaha xagee ka bilawnaa inaan safaarada ka gadano xagee ka bilawnaa inaan soo celino adeegii dadku u baahnaayeen iyo shacabku u baahnaayeen xagee ka bilawnaa nasiib marka waxaan u yeelnay safaaradda Washington oo ahmiyad weyn noo ah dowladda Mareykanka inaan ku yeelano meel bixi aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel mulkeeda aan leedahay dhismaheedana aan leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulalkii burburay oo dhan safaaradeennii bacdama burbur ugu dhacay iyo dhibaato safaaradeennii iyo dhismaheennii waa burburay iyaga naftooda inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno oo meeshii aan shalay adduunka kaga jirnay aan kaga jirno insha allah ilaahay idinka safaarado cusubna iibino ay kow ka tahay London iyo South Africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo Canada hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah dhaqaalahan haysan dhaqaala badan maaha dal fakhriyaan nahay dalkiisu kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto maxaa la yidhaahdaa cashuur badan dadku aysan bixin dadkeena diasporaha oo dibadaha jooga naftigooda aysan gaalo soo fiirin macnaha wixii ka badan faamilkoodii aysan gaalo soo fiirin laakiin waa dad wax nala laho intaasna wax waa sheegaan social media wax badan waa sheegaan niyad maasha allah maasha allah difaac adag baa ku jirnaa marka runtii dhaqaalehen waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo wixii aan la dhicin ama naxadin ama jabka aan la gashanayn waa isgaari kartaa hadday isgaartana oo barakay leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibraddeeda leenahay musuqmaasuqu wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibraddeeda aan leenahay colaad meesha na gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahayna waana siiyey oo dadki ilaahay doortaanna Soomaaliya waxaan waxa weeye waa dhaxal Soomaali ah weeye oo annagu runtii dadkii laga horreeyey ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaaleen waxay qaban kareen waa qabteen lama eedeynayo wixii hadda ka dambeeya waa annaga marka annaga maamulkii baan nahay keliya maaha in wax nalaga sheego waxaa la rabaa taakuleen gacan inaad na siisaan oo garab noo noqotaan oo taageertaan dowladdiina waxaani waa dhaxal ummadda Soomaaliyeed ee leedahay insha Allah hadduu ilaahay yidhaahdana waxaan rabnaa 20 sano ama 5 sano ka bacdi xaaladdeena iyadoo sidaan si kasii fiican inaan meeshan uga sii guurno meel kasii weyn oo ka wanaagsan insha Allah waxa weeye dhaxalkaasi waxa weeye dowladda oo iyada nafteeda wada leenahay waa dhaxal cid gaar leh malaha dadku isku khaldaan maamulaha iyo dowladda waa idinka markaa dowladda caayaysaan idinkaas caayay haddaa madaxweynaha caayaysaan idinkaas caayay maxaa idinkaas taan qaran iga dhigtaanin marka qof caaya ka warrabo marka dowladda idinkaas kale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay inaan lagu talax tegin yaa loo baahan yahay in la istoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in la istoosiyo oo la isasaxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeele waa dhaxal wey haddii la dumiyo
waxaanaya mala annaga haddii hadda sabtaan samayn lahayn kuwa naga dambeeya waktigun baa naga halaabi lahaa wakta naga khasaari lahaa 5 sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay samayn lahaayeen ama 10 sano ka bacdi waxa weeye marka aan wada shaqeyno marka oo qof walba dawladdu uu dareemo in isagu wax ku leeyahay oo wax ku darsado intaan in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay kartideeda caqligeedana waa haynaa laakiin waxaa la rabaa in dawladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in la iska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dawlad la-aan waa soo aragnay safaarad la-aan waa soo aragnay hanti la-aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxaa lagu gaari karaa waxay tahay wadajir iyo midnimo kuleedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane agarlii wax ugu qabo wana lama huraane agarlii wax ugu qabo dalkiina marka dalkiina iyo dowladdiina meesha xamaasadana ka muuqata marka waxba ha kala hakarin waxa aad ma siinaysaan maxaa cabdullaahi waxaad qabanaysaan wanaag waxaad u qabateen naftiinna iyo dalkiina iyo dowladnimadiinna maxaa yeelay dowladda hadday xun tahay adiga laguma ixtiraamayo soo ma garan baasaboorkaaga lama ixtiraamayo marka lagu yahay soomaaliyana gees waxa lagu leeyahay maxaa yeelay gurigaagaa xun marka gurigiina wanaajiya gurigiina hagaajiya madaxdiina ixtiraama waxa weeye qof walba waqtuu leeyahay qofkaasna shaquu hayaa shaqadu hayana maalin walba waxba ku dari marka waxaa loo baahan yahay annagoo wada jirna dowladdeena inaan dhisano annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisano oo qof walbaba wadaniyadii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walba soo celiyo qabiil wax waana tari waaye qof jeclaysina wax waana tari waaye qabyaalad waana tari waaye waa in loo noqdo marka meeshii aan naqaanay oo Soomaali ay isku duubnayd oo ay wax wada lahayd oo wax ugu horeeya wada lahayd ay ahayd dowladnimo iyo dal iyo dad waa mahadsantihiin waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan fariin u diro jaaliyadda Soomaalida oo ku nool Mareykanka iyo Canada iyo qurbaha guud ahaan dowladdu dhaqaalaha cirka kama hesho dowladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin ay wadaniyiin u yihiin patriotic ay u yihiin sida la sheegay waxaa weeye waxaa laydinka rabaa inta harti inaad samaysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qunsuliyad aan samayn doonno iyo guri martidii soo degto intaba waa ka adagna hadduu qof kastaba xoogaa lagu qori u keeno intaas in ka badan waa samayn karnaa Yes, we can. intaas waxaa dheer bacdamaa dalkii iyo dowladnimada leedihiin iyada naftigeeda qorshe in la sameeyo oo annaga qorshihii aan keenno oo safiirku iyo howlwadeennada safaaraddu ay ka